iyadoo laga duulayo adkeynta amniga iyo nabadgelyada gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Hirshabelle ay soo saartay digniin ka dhan ah diyaaradaha isla kala goosha deegaanada maamulka Hirshabelle gaar ahaan gudaha magaalada Jowhar ay soo qaado rakaab ciidan hubeysan iyo sidoo kale hub sharci darro ah oo aan soo marin nidaamka maamulka Hirshabelle. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay soo saartay warqad lagu mamnuucayo guud ahaan diyaaradaha soo qaada ciidan hubeysan iyo sidoo kale hub sharci darro ah in ay keenaan gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere. Warqadda ayaa waxa ay u qorneyd sida tan: Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Hirshabelle iyadoo gudanaysa waajibaadka la xiriira ilaalinta ammaanka guud iyo sugidda nidaamka duulista hawada ayaa waxa ay soo saartay digniin rasmi ah oo ku socota dhammaan hay'adaha, shirkadaha iyo ageensiyada ka howlgala garoomada diyaaradaha ee hoos yimaada dowladda Hirshabelle. Waxaa si adag loo mamnuucay in diyaarado ciidan oo hubeysan ama kuwa sida hub iyo qalab militari sharci darro ah ay soo galaan garoomada diyaaradaha ee maamulka Hirshabelle iyadoo aan loo marin nidaamka iyo habraaca dowladda Hirshabelle. Wasaaraddu ayaa waxay caddeyneysaa in ficil kasta oo noocaas ah uu yahay jebin sharci iyo khatar amni, isla markaana cid kasta oo lagu helo ama lagu tuhmo arrintani laga qaadi doono tallaabo sharci adag. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay mar kale ku celinaysaa in aan la aqbali doonin diyaarado kasta oo hub ama ciidan wadata oo aan la oggolayn, isla markaana ay waajib adag la kulmi doonaan cid kasta ama hay'ad kasta oo ku xadgudubta nidaamka dowladda Hirshabelle, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Hirshabelle. Digreetadan ay soo saartay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle ay kaga falceliyeen siyaabo kala duwan, isla markaana sheegay in maamulka Hirshabelle uu kaga hortagayo sida wararka aynu ku helayno musharaxiin doonayo in ay yimaadaan gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle maalmaha ina soo aadan, taas oo wararku ay sheegayaan in maamulka uu kaga gol leeyahay warqadani uu soo saaray in ay ka dhan tahay musharaxiintaasi kusoo wajahan gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Cabdiraxmaan Shamcuun, Hoyga Banaadir TV, Jowhar.